maxkamaddu waxa ka codsanaya in liya afiyo afsli sameeyo kalar waa nin caadeysta ah. maxkamadda gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa soo gabagabaysay dhageysiga eed loo haystay eedeysane kalar Cabdiweli Khayro kaas oo ku eedeysnaa in uu dhac ka geystay gudaha magaalada Gaalkacyo sidoo kale dad shacab oo ka dhacay hanti ay leeyihiin xafiiska xeerlaalinta Galmudug ayaana soo jeediyay eedan loo haystay eedeysane kalar Cabdiweli Khayro eedeysanaha kalar Cabdiweli Khayro kalar waxa lagu soo eedeeyay burcadnimo horeyna la sii daayay markii hadda u dambeysay taariikhdu markii ay ahayd 27 bishii shanaad 2025 asagoo oo dhameystay xabsiga ku qaatay intii uu mudnaa waxa ka soo wareegay wax ka yar bil ka yar baa ka soo wareegay isla ficiltu burcadnimo ah oo isla magaalada Gaalkacyo dhexdeeda ka geystay oo uu uga qaatay gabar lagu magacaabo Shukri Maxamed Salaad mobile asagu ee 16 ah hadaba maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in qodobka lagu soo eedeeyay iyo caadisnimada ah labadaas qodob 484 ah iyo qodobka lagu soo eedeeyay oo 61 ah si dadka looga qabto cadaalad loo helo dadka amniga iyo xasiloonidana dalka ay ugu soo laabato in la marsiiyo ciqaabta uu ku mudan yahay intii ay socotay dhageysiga maxkamadda ayaa waxa maxkamadda la hor keenay marqaatiyaal ku cadeeyay kalar Cabdiweli Khayro faldambiyeedka uu geystay iyadoo sidoo kalena baarihii kiiska oo maxkamadda la wadaagay waxyaabihii kaga soo baxay baaritaanadii ay sameeyeen intii uu socday kiiskan loo haystay kalar Cabdiweli Khayro isagoona sheegay baaruhu inuu yahay caadeyste falal dambiyeedyo badan hore uga geystay sidoo kalena lagu soo xiray xabsiga magaalada Gaalkacyo dhowr jeer gunaanadkii maxkamadda ayaa waxa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda garsoore Cabdirisaaq Xasan Cabdi oo isagu sheegay in maxkamaddu ay ku xukuntay 3 sano oo xariga maxkamaddu u timid arday cadeysid waxaan maxkamaddu imaadan cadeynaya in gabadhaas ninka mobile ka dafay inuu mobile uu ka dafay waxa lagu sheegay ama waxa aad u arkaysay waxaan indhahay ku arkay waxa la sheegay ma imaan maxkamadda marka maxaa arkaysay marka waxaan arkay ninka gabadhan mobile ka dafay goorma xilliga ahayd هذا واحد 8 ساعة من هذا 8 ساعة بأهل دورنا 8 ساعة ظهر ما أهل واقر مركو كان يا كل شو قاعد أنا يا كل شو مركز طيب بالله اللي بتشوفه قبل موبايلك يكون رئيس ويكون هذا اسمه موبايلك معاني ويكون هذا عندي بس سعودي واكي صدق حاسس نوانك نك حاجة في ليه جيس كويسة نك جيس وحاجة واي استاج محكمة بحكي سنيسد لا وذاك maxkamaddu waxa ka codsanaya way hore galayo habshan ku soo laalaatay oo dhan wajida in liya afiyo afsli sameeyo ka codsanaya ma santa maxkamaddu markay dhageysatay eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee Galmudug maxkamaddu markay u akhrisay eedeysanaha eedda uu ka soo gudbiyay xafiiska xeerlaaliyaha guud ee Galmudug si waafaqsan qodobka 103 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay dhageysatay jawaabta eedeysanaha maxkamaddu markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeerlaaliyaha guud ee Galmudug iyo eedeysanaha maxkamaddu markay dhageysatay marqaatiyaasha fadhiga maxdarka la keenay maxkamaddu markay aragtay qodobka 484 farqadiisa koobaad ee lala akhriyay qodobka 61 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay qodobada kala ah 120 121 123 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka maxkamaddu iyadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusan waxa ay ku heshay dambiile kalar Cabdiweli Khayro ina xaawo aadan Cabdi 27 jir ah ku dhashay degan Gaalkacyo qodobkii eedo ay ku qotantay waxa ayna maxkamaddu ku xukuntay 3 sano oo xarig ah cidii aan ku qancin xukunka maxkamadda waxa u furan raacfaan waafaqsan muddada sharciga oo gal yahay Cabdirisaaq Maxamed Ahmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo